codaynta dadweynaha ku nool degmada Shaangani ee gobolka Banaadir ayaa qaybo kamid ah waxa ay saaka safaf dheer u galeen sidii ay u qaadan lahaayeen kaararka codaynta. kaararkan waayii ugu dambeeyay hadalhayntoodu way taagneyd guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee lagu muransan yahayna waran istaba jooga ayay soo saarayeen oo la xiriira doorashada qof iyo cod xilliga ay qabsoomayso xilliga kaararka waxa weeye isdiiwaangelinta iyo qaadashada kaararka codaynta ay bilaabanayso golaha deegaanka xilliga la dooranayo waran istaba jooga ayaa ka soo baxayay. waxaad moodaa markaa inay sii socon doonto in kala warama hayee inay sidii ay wax u qorshaysteen weli ay wax u socdaan baad moodaa. waan dul istaagi doonaa deegaanada laga qaatay kaararka codaynta iyo tirada qaadatay iyo sidoo kaleeto ololaha socda shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan. waan dul istaagi doonaa waxaan dhinacan kaleeto mid iyo laba ka dul istaagi doonaa meelaha ugu horeeya ee kaararka codaynta kaararka laga bilaabayo qaadashada kaararka. hadda waa diiwaangelin kaararkii baa la qaadanaya. qaadashada kaararka meelaha ugu horeeya ee gobolka Banaadir ku xiga ee guddiga doorashooyinku ay shaaciyeen iyadana waa dul istaagi doonaa waa idinla wadaagi doonaa. waxaa dhinaca kaleeto mid iyo labo aynu ka dul istaagi doonaa sida ay suurtagal ku noqonayso doorasho qof iyo cod. Puntland waa maqan tahay, waxa weeye Jubbaland waa maqan tahay, dhulka intiisa kale dagaalaa ka socda. sida ay suurtagal ku noqon karto waan dul istaagaynaa. dhinaca kaleeto waxaan rabaa mid iyo labo inaan ka dul istaago dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga socday magaalada Aboorey oo ka tirsan degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan. khasaaro dhimasho iyo dhaawac fara badan le maalmaha waan ka mashquulay oo SSC Khartoum aan ku mashquulay iyadana waan soo koobi doonaa. dhinaca kaleeto degmooyin ka tirsan gobolka Bay iyo Bakool kooxdii argagixisada ahayd waxay ka qaadeen bandow saarnaa dhowr iyo 10 sano iyo dhibaatooyin ay shacabka ku hayeen. iyadana waxyaabaha sababka u ah ee ku khasbay kooxda argagixisada inay bandowgaasi qaadaan iyadana waan dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nugula wadaaga qaybta commentiga. aynu ku bilownee degmada Shaangani ee gobolka Banaadir maanta waxaa looga dareeray qaadashada iyo isdiiwaangelinta kaararka codaynta. guddiga doorashooyinku markii laga fiiriyo haba lagu muransanaadee shaqooyin horta badan bay qabteen. ilaan qofka waa loo qiraa lebintiisa waa loo qiraa. isaga lagu muransan yahay isagu isma keenina nin baa keenay. waxa lagu muransan yahayna isagu ma keenina nin baa keenay. laakiin iyaga guddi ahaan shaqada ay qabteen waa shaqo bogaadin la weeye. wixii lagu muransan yahay cidda ku muransan bay u taallaa. laakiin inagu ka shacab ahaan wixii saxana waa sax waan leenahay oo waan bogaadinaynaa, wixii khaldanna fartaan ku fiiqaynaa. guddiga doorashooyinku shaqo fiican bay qabteen xaqiiqada markii laga hadlo. ummadda Soomaaliyeedna waxaa dan u ah inay fartooda ugu codeeyaan qofka siyaasadda ku matalaya. haddii la yidhaahdo sidee loo codaynaya halkee laga codaynaya amni darrada waddanka jirta iyo iyadana waan tataaban doonaayo dee waa another case. laakiin shacabku inay fartooda ku codeeyaan doorasho qof iyo coda la galo qof walba qofka matalaya uu soo doortay uu ku qanacsan yahay arrin aad iyo aad muhiimad u leh oo bulshada Soomaaliyeed muhiimad gaara u leh weeye. waxaa soo daashaday 30 iyo dhowr sano qof waxa weeye la iska soo qaado odayaal intay xoogaa ka cuneen waxa weeye la geeyay ayaa soo daashaday oo soo dhibaateeyay oo waxbana meel aan u socon meel uu socdo aan jiriyo wuxuu bulshada u qabanaya toona. marka muhiimad weyn bay bulshada Soomaaliyeed u leedahay inay fartooda ku codeeyaan. shacabka degmada Shaangani markaad fiiriso safaf dheer ayay ugu jiraan sidii ay u qaadan lahaayeen kaararka codaynta ay u qaadan isku diiwaangelin lahaayeen. ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walbo la geeyo oo aysan cabsi markaa amni darro aysan ka jirin tabtaa unbay safaf dheer u galayaan sidii ay kaarka codaynta u qaadan lahaayeen. adduunka way daawadaan oo bulshada Soomaaliyeed waan ka daawanaa meelabla laga codeeyay iyo bulshadii oo safaf dheer ugu jirta sidii ay u codayn lahaayeen. laakiin ummadda Soomaaliyeed nasiib uma aysan helin arrintaasi. guddiga doorashooyinku marka shaqo badan bay qabteen oo aad iyo aad u fiican. shacabka degmada Shaanganina kala bar waxaa la dhihi karaa waxay qaateen kaararkii codaynta oo way isdiiwaangeliyeen. guddiga doorashooyinku waxay shaaciyeen in bisha Juun ee sanadkan la qaban doono doorashada golaha wakiilada ama golaha deegaanka oo guud ahaan dalka ay ka dhici doonto. si ay ku suurtageli doonto garan mayno maamul goboleedyaha maqan oo diidan
asxaabtii mucaaradka ayaan iyagana qeyb laga gelinin oo iyagana banaanka ka taagan beesha caalamka ayaa digniino kasoo saarayaan siday ku suurtageli allah garanaya hanaankeeda markaad fiirisanay inaysan suurtogeli doonin bay u badan tahay taasay u badan tahay laakiin markii laga fiiriyo sida waxqabadka guddiga doorashooyinku arrin badan fiican bay qabteen shaqo wanaagsan bay qabteen haba lagu muransanaado oo qaabkay wax u dhacayaan iyo qaabka iyaga loo keenay iyo qaabka doorashada qof iyo cod ay wadaan xoogaa muran baa ha ka taagnaado iyo tuhno soomaalidu dee muddo badan baan qas iyo lab kusoo jirnay oo tuhun dhammaan mahayo laakiin shaqo fiican bay qabteen ummadda soomaaliyeedna markaad fiiriso sida ay wallaahi ay uga falceliyeen inta badan commentiyada iyo markaad akrido waxay aad iyo aad usoo dhaweynayaan guddiga doorashooyinka iyo shaqooyinka u qabsoomay iyo hanaanka doorasho qof iyo cod ilaa farmaajo xilligiisina doorasho qof iyo cod shacabku waa hadalka keliya ee ay taageersan yihiin in laysla ogolaada laakiin fiicnaan lahayd oo hanaanka marka xukuumaduhu ay u marayaan ayaad moodaa hanaan keliya oo ayaga danahoodun ay ka dhex arkeen tusaale markaan soo qaadana hadda madaxweyne xasan waxyaabaha loogu baaqayo waxaa ka mid a gogol looga arinsanayo marxaladda siyaasadeed ee dalka uu ku jiro inuu qabto la iskaga imaado laga wada hadlo hanaanka geedi socodka doorashooyinka laga heshiiyo laga doodo wardan ma inoo tahay sida mise dan inoomaha in laga wada hadla ayaa laga codsanaya isagana waa diiday wuxuu leeyahay loo joojin ma laga tashan ma waxba lagaa weydiin ma aniga madaxweyne dalka ka cidan wax ka weydiinaya male taasaa marka cilada koowaada ee u baahan in la xaliya laakiin guddiga doorashooyinka markii hadda tallaabo qaadkay qaadeen iyo aad bay u wanaagsan tahay waxay keeneen qaabkii doorashooyinka lagu geli lahaa waxay amba qaadeen deegaanadii laga qaban lahaa durbana wayba qabteen oo hadda isdiiwaangelintii waa socotaa gobolka banaadir markii lasoo bogaamaba ee maalmaha lagu soo hadan laga qabto waxaa ku xiga deegaanada SSC Khartoum haddaan isku marba la bilaabin waa sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen waxay sheegeen in guddiga doorashooyinku meelaha ugu horeeya isdiiwaangelinta iyo golaha wakiilada doorashooyinka golaha wakiilada laga qabanayo ay yihiin deegaanada SSC Khartoum iyo gobolka banaadir waa meelaha ugu horeeya waxaa kaloo ay xuseen koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto deegaanada la yidhaahdo galmudug iyadana in ay waxa weye hirshabeellaba ay noqon doonaan deegaanada laga qabanayo ee ogal hadda doorashada golaha wakiilada ama doorashada qof iyo cod waynu eegi doonaa wixii kasoo kordhee hawsheedu way socotaaye muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhinacan kaleeto deegaanka aboorey ama magaalada aboorey maalmahan dagaalo xoogan baa ka socdo isdaba jooga ilaa 4 maalmood oo isdaba jooga la isku soo noqday kooxdii argagixisada ahayd oo doonaysa inay deegaankan aboorey u noqoto saldhig ay uga duusho ilaa gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya oo marin u noqday deegaan istiraatiijiyan ah ayaa waxay isku dayeen inay deegaankan dib u qabsadaan kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleyda ee gobolka Hiiraan dharbaaxa adag kooxdaas argagixisada ay ku dhufteen oo ay kala wareegeen deegaankaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay gacantooda ku jiray khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa jira jagta la iska geliyay ilaa haddana way ku dhici waayeen kooxdii argagixisada inay qabsadaan magaalada aboorey waxaa kaga dhintay maleeshiyaad aad u tiro badan oo 100 kor u dhaafaya sida saraakiisha dawladda ay sheegeen waxaa ku jira raggaasi 8 dhagar qabe oo kamid ah ragga madaxooda lacaguhu ay saarnaayeen oo ciidamadu ay halkaasi ku dileen welina uma suurtagelin in deegaankaasi gacanta argagixisada uu dib u galo way ku jabeen ciidanka dawladda iyo kuwa macawisleyda oo iskarabsanaya ayaana awood xoogan kala hortagay iyadana weli xaaladeedu way taagan tahay waynu eegi doonaaye dhinacan haddii aynu eegno bakool iyo gobolka bay ee koonfur galbeedna degmooyin ay ka mid tahay xudur waajid oo waayihii ugu dambeeyeyba saarnaa cunaqabatayn xoogan oo kooxda argagixisada ay saareen ayay kooxda argagixisadu waxay sheegeen inay ka qaadeen cunaqabatayntii iyo cadaadiskii dadka shacabka ay saari jireen waxay sheegeen in ganacsigu uu xor yahay waxaana arrintaasi ay ku imaatay wadahadal ganacsatada deegaanada koonfur galbeed iyo kooxda argagixisada dhex maray taas oo ugu dambeynna kooxda ku khasabtay in cunaqabataynta ay ka qaadaan ganacsiga iyo isku socodka bulshada waxa ay gebi ahaanba ka bixeen degmooyin ka mid ah degmooyinka koonfur galbeed oo ay ka mid tahay degmada qoryooley iyo sidoo kaleeto xudur waajid markii horeba mayn joogin dabcan laakiin agagaarkeeda ayay ku sugnaayeen oo gebi ahaanba waxay fureen marinadii ganacsigu iyo isku socodka bulshada ee isku marahayeen degmada qoryooley waxaa la arkayay ay shacabku isku soo baxeen ayna aad iyo aad u dibadbaxayaan iyadoo xamaasada ka muuqato nacaybka kooxdani ay u qabaan
degmadaasi waxay kamid ahay degmooyinka ay ku sugnaayeen oo ayaga ayaaba joogayba wayna iskaga baxeen gariyahaanba iskaga hulooleen kadib culaysyo xoogan oo dhinacyo kala duwan la saaray waxay arkeen shacabkii oo gacantooda ka baxay oo ka cararaya oo markaasi u cararaya dhinaca dowladda iyadoo markaa ka cararaya cadaadiska iyo dhibaatada ay dadka shacabka ku hayaan iyo weliba cunaqabataynta noloshii dadka ayaa qiil gashay sidaas awgeed ayaana sabab u noqotay in kooxdu ay xoogaa isjilciyaan islamarkaana ay fasaxaan ganacsiga oo ay dhahaan bulshadu ha iska ganacsato ha isdhex qaado ha socoto ay markaasi dhahaan waynu eegi doonaa kooxaha argagixisada dagaalo xoogan baa lagula jiraa gobolka shabeellada hoose shabeellada dhexe agagaarka muqdisho gobolka hiiraan dagaalo xoogan baa kooxda ilaa koonfur galbeed naftarkeeda iyo jubbalandba dagaalo ayay kula jiraan kooxaha wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo